السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي عادي إنه هاي كلية نكون حسوق لينا شقوين فرصة أو أي سوء إعلاميين هيدا عالمية. فرصة شقايا waxay ka soo baxday channel practitioner oo dhakhtar waxay ka soo baxday Muqdisho Specialist Hospital. marka cidii dhakhaatiir caafimaadka ku fiican way xareysan karaan. waxyaabaha lagu doonayo waxa kamid ah inuu Soomaali yahay, af Soomaali ku hadli karo, inuu haysto shahaadada MBBS, inuu leeyahay khibrad 3 sano ah, inuu ku cadeey CV-giisa goobaha uu ka soo shaqeeyay iyo wixii la halmaala. af Soomaali ku qoran yahay codsigani qaran jobs waa yaala, xog wadaag WhatsApp group waa ka yaala, linkisyada waa yaalaan. shaqadan اللهم صل على محمد deadline keedu waxa weeyaan 4 February ayuu dhacayaa shaqadan dhacaysa. marka xafiiska la geenayaa hadii la ka dhigo shaqadan email lagu diri maayo. reer Muqdisho waxa ku sameynaysan toos baa u geenaysan insha Allah xafiiska dhakhtarka Maxamed ku yaala Muqdisho ku yaala. intaas ka bacdi waxaan doonaynaa ku xigsiyo clinical laboratory technician Muqdisho Karama Specialist Hospital asan raba. alaale wixii maaragtay qofkii qaybta ku wanaagsan clinical laboratory technician ku apply gareeyo shaqadaas CV-giisa ku diro email ku yaala اللهم صل على محمد maxaa la yiraahdaa page-ka qaran jobs iyo linkiska soo geliyo xog wadaag. shaqada ku sii xigta waa NRC jigjiga M&E evaluation officer baa loo baahan yahay, ay u baahan yihiin jigjiga Somali Regional of Ethiopia. deadline keedu waa 9 February insha Allah. qofkii M&E in badan baa M&E ku soo hadalay, muuqaaladiin hore wada daawan kartaan. marka qofkaas insha Allah hawsha xareeyo linkisyadana xagga hoose waa aniga soo gelinaya insha Allah. xagga hoose soo dhigaya message-da dhamaantood ilaa ka dhigo. UNSOS waxay u baahan tahay administrative officer Muqdisho ay uga baahan tahay xirmaya. waxaan xirmaya deadline-kaasi 9 February 2023. job code title-keedu waa administrative officer, waa shaqo buuxda, waa qaybtii admin-ka ayaa looga baahan yahay qof haya oo markaa ku shaqeeya shaqadan. koleysa UN-ta caadada waa waxa lagu abaalgariyaa habka online-ka ah, waa la buuxiyaa. marka best trial isku day insha Allah qofkii isku day karayo insha Allah kulli waa iska fududahay kaliya administration waa fududahay, inkastoo xagga HR-ka uu soo gali karo, xagga procurement soo gala mararka qaar oo cross cutting position boskaasi marka take care laga taxadiro. UNRCO som Soomaaliya uga baahan tahay 19 February noo dhacaya position waxaana u baahan tahay communication and advocacy officer. waa laba xil oo saaran, waa communication officer sidoo kalena ahna advocacy officer. marka iyadana insha Allah sayuunta caadiga ah sida inta badan yuunta caadiga ah insha Allah hala xareeyo. waana online oo lagu xareynaa shaqada. okay Somaliland Oxfam waxay uga baahan tahay Tour for Humanitarian Development and Peace Learning Paper. Somaliland baa lagu baahan yahay. barnaamijka cid qaata kulli waa isna hal la faafahiyo oo waxa ku faahfaahsan yahay maxaa la yiraahdaa waxyaabo la qabanayo weeyaan. waa resilience kula sii xidhiidha, conflict resolution kula sii xidhiidha. marka insha Allah qofkii Oxfam way soo xayisay page-kan waxaan ku soo gelin insha Allah xagga hoose
halka laga helayo ama linkiska marka therefore shaqadan insha Allah ba email bal ugu dirayaa marka insha Allah hala reed garayo hala dadaalo ogeysiisaas insha Allah soo gaarsiin maanta shaqooyinka maanta soo kooban yihiin صوت Soomaaliya oo fara badan yihiin marka insha Allah hala dadaalo hala balay garayo wixii aad u baahato su'aal falcelin ay soo qabtaan WhatsApp numberka 0634862926 numberka ay soo qabto insha Allah 0634862926 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.